السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta dhammaan meel kasto ay joogaan. Salaam bacdigeed galabta waxaan rabaa halkan qiso yar oo aniga murugo igu haysa oo idibtay raggayagii Soomaaliyeed ama wax garadkayagii Soomaaliyeedna ayagoo u jeeda ay ka hadli laayihiin baan rabaa xoogaa yar bal hoga tusaalan yar inaan ka geysto. waxaa kamid ah gabdhihii Soomaaliyeed xishoodkii bay ka tageen, xayadii bay ilaaween, aruurtoodii bay daadiyeen, gaalay gacanta u galeen, balaayo dhan baa dhacday iyo baas, cawradoodii bay banaanka dhigeen, waxaan loo baahnayn bay soo bandhigeen, waxaan sharciga Ilaahay ku banaanayn bay ku dhaqmayaan. hadda ka hor digri Ismaaciil Xusnaada wadaad uu ku digriyaa waxaa ku jiray asiisow siday caadadu ahayd iyo asiisow haweenka xishood ku celi, asiisow iroolo wuxuu halayno, asiisow aan ceebsanin nooga celi, asiisow ciyaal caawadi gudhayo, asiisow tobaaka cankaystay noo celi ayaa ku jirtay Ismaaciil Xusnaada digrigaas ku jirtay. waxa weeye caruurtayadii dhalinyaradii Soomaaliyeed meesha ay ku socoto maanta way u jeedaan raggeena Soomaaliyeed. hadduu sheekh yahay waa u jeedaa, hadduu wax garad yahay waa u jeedaa, hadduu maxaan ku raadayay dabada jiro waa u jeedaa. maxaa looga aamusan yahay dhalinyaradeenna? kuwa isbeer baartisa tobaakadii bay cunayaan, waxaanaan aqoon oo dhan bay cunayaan, suuqay daadsan yihiin, dayac baa laayay, waa baabi'een. maxaa indhaha looga qarsanayaa? maxaa loo arki la'yahay dhalinyaradeenii mustaqbalkii dalka? maxaa loo arki la'yahay? war cawradeena banaanka taal maxaa loo arki la'yahay? war dumarkan qaaqaawan yaa maxaa loo arki la'yahay? war tii heesaysay waxaa la yidhi 3 nin oo asxaabiya yaa waxay u yimaadeen 3 gabdhood oo meel ku qubaysanayo qaaqaawan. rasuulkeena waa kamid ahaa baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam. tii u soo xigtay bay saas tiri madaxay qabsata, cimaamadiisuba ku tuuray, go'isiba ku tuuray. tii midna saasay tiri naasahay qabsata, asxaabigii kala ku tuuray asna midna saasay tiri saxahay qabatay, asxaabigii kala ku tuuray mid. intaasi maxay ahayd? cawrada meesha ugu xun oo ugu dhibka badani inay timaha tahay. rasuulullaahi maxamed wuxuu ugu hormariyay gabadha madaxeedu qaawan yahay, maradiisii ugu hormariyay oo ugu asturay soo inay cawrada meesha ugu xun tahay soo maahan tiba. gabdhaheennii Soomaaliyeed hadday heesayso waa madax qaawanta, oo hadday baawur wadato madax qaawanta, oo hadday munaasabad ka hadlayso waa madax qaawanta, oo hadday meel dhawaaqayso waa madax qaawanta, oo hadday dariiqa marayso waa qaawanta. war maxaa ina qaawiyey? war aawo xishoodkii, war aawo diintii, war aawo islaamnimadii, muslimnimadii ma waxaan ka dhigan shaar marna la gashado marna la siibo? yaa maxasad baa inaga adkaaday, maxiqdiga baa inaga batay, maxay taa amarka nagu dhacay? war amarka nagu dhacay muxuu yahay? xaggee laynaga haystaa? culimmadii waa dhawaaqahayaan, cid wax ku qaadanaysa male. anigoo dumarhi maanta gabar qaawan haddaan arko oon damca inaan canaanto ama dharbaaxyeeyo, qabiil baa ii soo kacaya, rag baa ii soo xaydxaydanaya, waxaa leeyahay maxaad gabadheeda ula hadashaa habar yaxno waalan baa layleeyahay. war ilaahay miyaan laga baqayn? ilaahay ma la ilaawo? war cinaabta naga dambaysa ma la ilaawo? war ubadkeenna baaba'ay ma la ilaawo? war dhulkeenna baylahdaa ma la ilaawo? amxaara ii soo milaqsanaysa oo la ogyahay saanu geli jiray iyo meelahaan marsiin jiray la ogyahay. dhul badan oo aan soo maray waxaan soo arkay tiknika Soomaaliya leedahay xidigti ku taalo oo dagaal ku gasho ku gubatay. maantana waa ii soo milaqsanaysaa, bad bay iga rabtaa oo waa ii soo milaqsanaysaa. maxaa keenay intaas? dayaceennaa keenay. 200 oo milfood baa keentay, inaanaan hoos ku fiirinayn baa keentay, qabiil baa naga adkaaday, ilaahay ka cabsigii baan ilownay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi. ilaahay waxaan ka baryaynaa qaatumada ilaahay inuu noo soo celiyo. ciroolaha iyagu waxa xun inay arkaan oy ka damqadaan. odayaashu ma gabdhahooda ay ogaan waayeen waxay samaynayaan? hooyooyinku ma gabdhahooda ay ogaan waayeen waxay samaynayaan? war hooyooyinku ma waxay ogaan waayeen ilmahooda dhalinyarada suuqa inta ku foofay qaar balaayada lagu jahaynhayo, oo qaar fiqsiga lagu jahaynhayo, oo qaar waxa daran oon afkaygu karin laga samaynhayo miyayna arkayn? maxaa looga hadli la'yahay? waxaan maqlahay hadda niman isku leexleexdayo meel la yiraahdo ka tasha iyo
meel la yidhaaha dhaqan toosin iyo waxyaalo furfurtay waxaan balyaan leeyahay waxaana jeclaan lahaa wax allaala waxaa samaynayo dhan meelahaas iyo meelo la mida in loo furo lagu guro kitaabadeena quraanka oo dhulka lagu daadiyay oo la tuuray oo la daadiyayna ha la soo qofo ha la soo akhriyo war diintii ilaahay ha loo noqdo haddii la rabo inuu dalku noo dego haddii la rabo milif calanka iyagii inuu keligiis noo soo noqdo haddii la rabo milfahan balaaye ilaahay inuu naga aruuriyo haddii la rabo kala qaybtaan in ilaahay naga saaro ha loo soo noqdo diinta islaamka ha loo soo noqdo xishoodkii ha loo soo noqdo xayadii ha loo soo noqdo alla ka cabsigii wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu